Soomaaliya ayaa diiradda lagu saaraya arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii xal lagaga gaari lahaa khilaafka u dhaxeeya qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Khilaafkan ayaa laga cabsi qabaa in uu sababo dib u dhac doorasho oo dalka ka dhaca maadaama ay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland qaadaceen hanaanka loo marayo doorashooyinka Soomaaliya iyo qaabka ay dowladdu iminka doonayso in doorashada lagu galo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo dhawaan warbaahinta la hadlay waxa uu qaadacay dhammaan hanaanka doorasho ee dowladdu ay soo bandhigtay iyo sharciga doorashooyinka Soomaaliya ee horey loo ansixiyay oo uu ku tilmaamay mid aan iyaga laga talagelin. Wuxuuna hadalkiisa raaciyay in aanay Puntland matalin xubnaha baarlamaanka ee laga soo doortay deegaanadaasi ee ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dalka. Lama oga sida ay suurtagal ku noqon karto iyada oo uu jiro isqabqabsigaasi weyn ee ku aadan ka qaybgalka shirka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee Axmed Madoobe iyo isku haysashada labada dhinac ee halka uu shirku ka dhacay in uu qabsoomo kulankan madaxda beesha caalamkuna ay doonayaan in la dedejiyo si loo galo doorashada oo lagu wada qanacsan yahay ayna tala ku yeeshaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe iyo sidoo kale ugu dambeyn in laga tala geliyo qorshahaasi hogaamiyaasha mucaaradka Soomaaliya.